barakacayaasha ku nool kaamka Ceel Cali ee ku yaala galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxaa soo food saaray duruufo kala duwan. Barakacayaashan ayaa qaarkood waxa ay ka soo hayaameen gobolada Ba iyo Bakool halka kuwa kalena ay ka yimaadeen deegaanada ku hareeraysan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ugu horeyn waxaa ka hadlay barakacayaashan waxaana ay dalka TV u sheegeen sida tan: hay'adaha sharafta leh intii alaabna siisay intii guri noo dhistay khayr Allah siiyo intii daawo noo keentay khayr Allah siiyo waa u mahad celinaynaa. haddaan waxaan u baahanahay raashin ma haysana lacagna ma haysana wax noola qorin male kaamka dhan gaajo waa si degdeg ah hay'adaha sharafta leh waxaan rabnaa inay wax nala soo gaaraan ay nala noo naxariistaan naxariis Ilaahay laga rabaa intii ka soka waxbarashana ma haysana si degdeg ah waxbarasho Allah nasiyo waan rabnaa inay wax noo qabtaan isbitaal iyo quraanba labadaba ay noo qabtaan waan rabnaa haduu alla idmo bii waa u baahanahay baad waa u baahanahay lacag kama helin baad kama helin xadhilaho intii wax nasiisay oo mahad celinaynaa ilaa xoogaa wax kale oo macug ilaa waa ka helin oo daawo leh waxa soo ugu baahanahay duq ay leedahay doom ay leedahay curyaan ay leedahay nolol soo booqdo oo wax nala siiyo oo wax aad noola taraan baahanahay. meeshan waxaan ka hadlayaa kaamka Ceel Cali joogaa hay'adaha waxna ma siiyaan maxay ahayd alaab waa helin intii waxna siisay khayran ku ognahay maxay ahayd baaldi waa qaadan alaab kale waa qaadan macug waa qaadan raashin ma helin lacag ma helin guri waa nolol dhisi biyaha cabaara nolosha waa nagala goostay waxaan ku cusanaynaa inay baasna siiyaan inay raashin siiyaan inay biino keenaan waxbarasho la'aan hayso waxbarasho ma siiyaan ma noo imaanaan waxbarashada xageed waxaan ku cusanaynaa inay degdegna la soo gaaraan biyaha noo shubaan raashin ay noo keenaan lacag ay noo keenaan halaasan ku cusanaynaa alaab kale waa helni daawo noola keenaa dadka waxaan u baahanahay maacun waana la siiyay waxaan u baahanahay raashin lacag bartan wali wax ka qaata ma jiraan hadduu Ilaahay ku ron yahay waxbarasho ilmihii waa iskuulay rabaan. ugu dambeyn waxaa ka hadlay horjoogayaasha kaamkan Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku magac dheer Aayatullaahi waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha kaamkan waxaana uu ka warbixinayaa xaaladda ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan kaamka Ceel Cali. waxaan idin sheegaynaa hay'adaha samafalka kuwa localka dawladda dhammaan waxaan jecelnahay ciddii noo soo booqatay oo noo timid oo maaragtaa wax noo qabatay waa mahadsantahay mahadaas ayaan ugu celinaynaa ciddii soo booqatay oo wax noo qabatay walow aan la helin dadkii waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo maaragtaa sidii loo rabo bini'aadanka wuxuu ku noolaan lahaa aan la helin oo cunno ay ka jirin wax hadda soo gaarsiin ayna jirin waxaan u sheegaynaa hay'adaha samafalka in wixii karaankooda ay nagu tabarucaan sidii maaragtaa iskoolkoo kale iskoolkii waa naga burbursan yahay lafiis waa yaaliin waase naga burbursan yahay wax noo dhisa waa la'nahay hay'adahan wax qabadkan aan ka rabno waaya marka dugsi quraan ma haysano laakiin waa la iska abaabuli karaa dugsi quraan waa la samaysan karaa dib malaha waxa al muhiimka ah in wax qabad dhab ah aan ka helno hay'adaha samafalka. waxaan ka hadli rabo waa kaamkan Ceel Cali waxyaalihii uu helay ama waxyaalaha dhibaatooyinka la soo kulmay ama waxyaalaha hadda u baahan yahay daruuriga ah markan bilaabo horta hay'adaha qaar badan ayaa wax noo keenay walow wax dheefkooda uu ahay caag iyo biyo iyo ay ahaayeen meeshan markii hore horta fatahaad aan caadi ahayn ka dhacday waliba magaalada qaybna hal mar ay gashay qaybna laba jeer ay ku noqsatay kaamkan waxay ahayd labada jeer waxay ku noqsatay dhibaato weyn ay biyo u geysteen guriyii hore dhan waa dumeen mar labaad hay'ada nala soo kulantay oo guriyo noo dhistay guriyaha noo dhistayna waxay ka kooban yihiin bac iyo cooshado wax saas oo kale kulaylahan hadda bisha Maars la joogaa kulaylka oo kale dadka guriyaha markaad fiirisid alaabtii dhaxtaalo banaankaas la wada jooga waad aragtaan oo geediha la aaday oo bac saacadan oo kale lagu jiri karo Maarsa saas ay tahay boqolkiiba boqol hay'adaas ayada anagoo meel aan galnaba aan lahayn ayay noo nuurisay boqolkiiba boqol ay mahadsan hay'ada badan oo hay'adaha magaalada ka howlgala oo kuwa weyn ah ayaa wali aan waxay noo qabteen xogaa
jirin oo dhaliili badan anigoon hadda hebel ka lahayn haddii la yidhaahdo kale xoogaa waxyaala dhibaatooyin ay lagala kulmi karo ayaa waxaa jirta hay-adaha aan waxna siinin oo kaamka aan soo booqanin oo magaalada hay-adaha ugu weyn ah meeshaas ayadaa dhaliilaan u jeedinaynaa ayagaa is og hebel ma dhahayno marka intii wax noo keentay 100% ay mahadsan yihiin saxaafaddana weliba qaybtan adinka aad hadda ka socotaan oo naga duubtay warka 100% ay mahadsan tahay annagoo aan lacag iska bixin karin oo aan wax kale isu qaban karin oo saxaafad u yeerin karin oo hay'ad aan u yeerin karin ayaad inta noo timaadeen dhowr jeer ayaad adinkoo lacag naga qaadinaad meeshaas arrintaas ayada noo samayseen waa ku mahadsantihiin 100% hay-adihii gurmadka noo soo sameeyey waa ku mahadsan yihiin inta kalena waxaan u jeedinaynaa inay wax nala soo booqdaan sababtoo ah waxaa waaye waxay meesha u joogaan waa inay dadka maatada oo dhan wax u qabtaan ciddaan u qaban gardareeda ayadaa og cidda u qabatayna oo noo qabatayna 100% ay mahadsan yihiin Cabdiwaaxid Maxamed Aadan wararka dalkan iyo CV magaalada Beledweyne